بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أمور الدنيا والدين وعشركii noogu xigay aynu kaga sheekeynay network casharkan waxaan kaga hadlaynaa waxa loo yaqaan TCP/IP stack TCP/IP stack waxa weeyaan OSI layerka naqaanay ayaa waxaynu u barbar dhigaynaa TCP/IP stack layerada loo yaqaano ee dhinacna wuxuu ahaa ISO model dhankana waxa weeyaan dhinaca TCP/IP ama internet layers noo dadka qaar baa u yaqaan marka waxay iyadu shaqadoodu tahay sida halkan inooga muuqata kan waa OSI layerkii layeradana way barbar dhigmayaan marka labada layer ee ugu hooseeya ee physical layerkii data link layerka OSI layerku wuxuu u yaqaan laba layer oo kala duwan laakiin TCP/IP layerku wuxuu isagu u yaqaanaa waxa loo yaqaan internet layer ama kan sidoo kale waxa loo yaqaanaa DoD model sidoo kale waa loo yaqaanaa DoD model sidoo kale waa loo yaqaanaa marka internet layer baa la isku oranayaa network layer baa la isku oranayaa networki isaga waxa loo oranayaa waa internet layer TCP/IP TCP/IP iyo UDP baa ka shaqeyn jiray transport layerka transportkoodii weeyaan saddexda layer ugu sareeyna waa application layer haddaba aan hoos u dago oo aan eego layeradan qaabkay noqonayaan ugu horeyn labada layer ee ugu horeeya sideen halkii hore soo arkaynay physical layerka iyo data link layerka ayaa la isku oranayaa network layer marka labadoodaas u compose garaysanaya ama labadaas isku qaadanaya labadaas physical layerka shaqadiisa weyn naqaan bit movement iskin buu qabanaya shaqadii buu qabtaa laakiin uu compose garaya internet layerku halka u dhimatay waa network ahaan datadeena markaynu communicationka sameynayno waxyaabo ka koobnaanayo ugu horeyn IP addresski halkan imanaya oo options sorta kani qaybta waa options laakiin datada destinationka u socoto tusaalaha waa 192.168.1.4 buu socota sourcekeeduna waxa weeyaan tusaalaha 10.1.1.2 bay ka timid marka device-ka numbertan inoo yaala ayaa wuxuu la xiriirayaa device-ka numberta kale adduunka yaala isaga oo internetka u dhaxeeya marka communication kaasi dhex maraya ayaa kanin wuxuu noqonayaa source-kii kanina wuxuu noqonayaa destinationka waa halkay u socotay datada kadib markaasi reply-guna wuxuu noqonayaa markaasi ka lagaga soo jawaabo sidoo kale kolka laga taga qaybta portionka marka laga taga table-kaas waxa qaybtan iyaduna imanaysa saddex protocol ama saddex shay baa imanaya time-ka datada ku qaadanaysa inay noolaato datadani forever life inay noqoto lama rabo oo ay wax dhici lahayd data la diray 1980kii ayaa la oran lahaa maanta ayaa la receive gareeyay datadii berigii uu Mareykanka ku diray waxaas wax suura kala ma time to life loo yaqaan waqti bay leedahay protocol bay isticmaalaysaa tusaale ahaan protocolka tusaale file transfer hadii la sameynayo 21 buu ka ciyaari doonaa ama 20 IP header bay yeelanaysaa sidoo kale ma header checksum address lagu karto in datadan waqtigeedii iyo informationkeedii ku qoran tahay ay yeelanaysaa taa marka laga tago identity bay sidoo kale yeelanaysaa serial number IP flag color u gaar ah yeelanaysaa oo IP address ahaan laga garanayo iyo fragment offset ay yeelanaysaa taa marka laga tago xagga sare titleadii ba gorayo versionkeeda header language-ka type of the services-ka noocu yahay iyo total language-ka tusaalahan total language-ka datadan waa imisa waa 24 bit oo kale for example information-kaas oo dhan ayaa sidaa u imanaya marka shaqada ayaa waxa qabta internet layerka transport layerku waa transport layerkiisii isagu laakiin waxa ka shaqeynaya labadii protocol ee hore naqaanay TCP iyo UDP connection oriented protocol mid aha iyo mid connectionless protocol ah mid reliable aha iyo unreliable mid aha waxyaabo ka koobnaanaya waxa kamid ah hadaba TCP/IP aan doorbidno TCP/IP-gu waa kan sideen halkii ku soo arkaynay TCP/IP option baa halkan imanaya checksum-kii iyo arching point sheegaya maadaama uu yahay connection oriented maadaama laakiin UDP-gu ma laha seen arki doono waxyaabaha kale uu yeelanaya waxa kamid ah source-kii iyo destination-ka datada socoto sequences-ka acknowledgement number datadii la helay maxaa lagu garanaya waxa in la acknowledge kareeyo tusaale ahaan message markaad dirtid message-kaasi qofkii inuu gaaray maxaad ku garataa waxa jira tusaale WhatsApp-ka dad isku dirtid Facebook Messenger dad isku dirtid waxa lagu gartaa
laba tig ama laba tigoo grey noqonaya ama blue noqonaya ama laba tigoo weli colorkiisa aan isbedelayn waxa weeye yani waa sequence kuu sheegaya ama acknowledgement kuu sheegaya qofkaas xogta inay gaadhay that is why inuu leenahay waxa weeyaan waxa loo yaqaano reliable sidoo kale windowinkiibu shaqadeedii qabanaya windowin waxa weeyaan datadii in la helay iyo in la receive gareeyey waa windowinkii laga eegayay ama windowgii laga eegayay ayuu yeelanayaa sidoo kale laakiin halkaynu TCP/IP-ga UDP-ga markaynu nimaadno isagu waa connectionless oriented source-ka datada socotay destination-ku sheega iyo UDP langaska iyo UDP checksum-ku isagu sheega checksum waxa weeye sidiisaba siday u kala horeynaysa datada sequences of the data ayaa ka mas'uul noqonaya bes isagu intaas u qaabilsan ama hal la helo ama yaa la helin isagu dirayo nabaday waa sidii adigoo file lagu soo dhiibay filekii la yiraahdo hebel yaa arkay hay hebel inaad tahay maxaan kugu cadaynayaa itus kaarkaaga kolku tusaad u dhiibtay iyo inaad tiri hebel yaa arkay oo la yiraahdo hebel halkan uu joogaa oo hebelow warqadaada tiraado u tuurtay that is UTP marka waxa weeyaan waa labada faa'iido labadooda marka la isbarbar dhigo faa'iidadeedu tuu fiican waxa weeyaan TCP/IP application layer sen ka shaqeynayna waa hore uga soo sheekeynayna waa all applications oo layer 5 ilaa layer 7 tag waxay weeyaan waa session layer prestation layer application layer ay shaqadoodu ay koobsanayaan okay application layer-kii oo kala tusaalaha waa kan commonly waxa weeye application layer-ka qaybo ka mid ah application baaha laakiin oo imika yaa ka shaqeynaya bedelaasyada iyo kuwaasi laakiin waxaan uga dalnay waxa weeyaan from the full communication computerka wuxuu dirayaa serverkaasi communication la sameynaya waanu soo jawaabaya waxaanu isticmaalay wax loo yaqaan port 80 port numberska iyo waxyaabaha la xiriira waxa ka shaqeeya application layer kasta wuxuu leeyahay port address u gaar port addressyadu way badan yihiin hal ilaa iyo 1024 waxa loo yaqaan well known baa loo yaqaan waa inta la yaqaan inta wixii ka badan lama yaqaan toos yani looma yaqaan waa randomly isbedbedelaan oo lama wada xifdii karaa si kala aanu dhaahdo source-kii destination address-kii destination port-kii weeyaan iyo destination source port-kii iyo destination port-kii saas la mid kaga soo jawaabaya markaas okay marka waa from source to destination halkan ku yara raagaya daba halkan application layer-ku waxaan ka soo qaatay screenshot table aad u dheer marka intii ugu muhiimsanayd weeyaan baan oran karaa qaybtan ka ugu muhiimsan waxa weeyaan marka file la transfer gareynayo computerkaagi kan uu yahay tusaale ahaan server internetka idin dhaxeeyo aad ku upload gareynaysid serverkaasi waxa loo yaqaan file transfer baad sameyn kartaa file transfer baa la yiraahdaa filekaaga sida aad u qaadaysid ku upload gareynaysid port scan uu leeyahay 20 iyo 21 buu ku ciyaaraa waxa la mid ah sidoo kale adoo isticmaala SFTP iyo adoo isticmaala SFTP isagu waxa weeyaan file transfer-kii laakiin secure waxa sidoo kale file transfer-ka la mid ah ku agri inta isku midkaan saa ka dhigaya waxa la mid ah sidoo kale wax loo yaqaan S ama security copy wax loo yaqaan isaguna wuxuu kaga sii fiican yahay labadoodaba isagu time and date buu sidoo kale originate ka time-ka ayuu sidoo kale saaraa waxa sidoo kale file transfer protocol ka shaqeeya TFTP loo yaqaan Trivial File Transfer Protocol waa protocol isaguna sidii UDP-ga kale unreliable yahay laakiin waxa weeye user iyo password iyo waxba toona kuma xidhayo marka isaguna waa file transfer intaas waa wada file transfer dhinaca remote access-ka computerkan hadduu remotely u galayo computerka kale waxa la isticmaalaya wax loo yaqaan telnet waxa la isticmaali karaa SSH labadoodaasi waxay ku kala duwan yihiin kan waa more secure kanina waa less secure kanina waa more secure marka SSH waxa weeye waa secure telnetku waa less secure waa protocol la isticmaala laakiin security-giisu isagu waa laga fiican port number 21 22 iyo 23 na way ku kala ciyaaraan sidoo kale inta waxay raacaa email marka diraysid emailkaaga fariinteena baxdayga maxaa lagu kartaa faylka ka shaqeeya protocol ka shaqeeya waa maxay simple mail transfer protocol ba ka shaqeeya ay address-yadaada iyo waxyaabahaasi waxa isku bedela ay computerku waxaynu leeyahay waa machine language ma fahmay address-yadan inagu iyo Google-ka tusaale ahaan markaad Google gareynaysid
ma yaqaano magacan aad search gareynaysid laakiin IP address buu yaqaan waxa bedela wax loo yaqaan DNS domain name system baa bedela adigu waxaad ka qodanaysaa un tusaale ahaan Google un badax ka codsanaysaa Google IP address buu leeyahay IP addresskiisaasi ayuu isagu u translate gareynaya computer haddayna IP address siinayno kaana ka baxaya computer haddayna IP address siinayno computeradina laba option baynu kala dooranaynaa sida gadaal dambe kaga hadli doono maalin dambe kuloo yaqaano DHCP ama Dynamic Hosting Configuration Protocol oo aynu nahno adigu automatically switch noo si IP addressyada ama computerka inuu ku leenahay automatically adu ka codso routerka ama switch ka codsado inuu IP address ku siiyo iyo inaynu hab la yiraahdo static inaanu siinayno inagu barno inuu niraahdo adigu IP address ka saarteeda ama optional IP address adigu soo qaado waa DHCP isaguna Dynamic Hosting Configuration Protocol waa protocolka ka mas'uulka qaybahaas